بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنا وناكسن دمان أصحابتي عن كودا كلنا هبدا وحن إذا ليه هبين وناكسن وحن أنسيق ذكر رواء برنامج كي أيقود السويسين وهاي برنامج كي دقمة بيها برنامج كاس قيبتي وهرسي كل واحد صو دري قيبتي كلا أو دود وذاك هذا ربع أنا عاوة برنامج كاس أسوي صراحة دور روحه يسوي وعديو برنامج كاس يسويسي برنامج كاس وانا عاوة ربع أنا دياريو أو كل كأنجلو wicitaanadayaan hadda bilaaban raba hadduu alla idmo wicitaankaasna waa wada sugi doonaa biyihii ayaa waxay noqdeen dhowr nooc laba weji ayuu ahaay labada weji waxay ahaayeen wasaq iyo biyo go-ataan laakiin hadda wejiga saddexaad ayaa kusoo darsamay inuu biyihii noqdo biyo oo macnaha uu dhanaan uu noqdo biyihii dhanaanka markuu noqday ayaa waxay dhacday qareer oo zaa'id inuu sii noqdo hal biyo ayuu ahaay biyihii qaybta kalena way ku darsameen marka macnaha cawashada waxay ahayd in oo biyaha uu go-aaya qaybta kale ee biyaha u joogeen xaafadaha kale ee biyaha joogaan biyihiina waxay noqdeen biyo oo aad dhanaan u ah taas waxaa keeni karta kulley waxaan u maleeyaa biyihii webiga ayaa zaa'id u guray laakiin waxaa la rabaa in oo biyahaas laga taxdiro oo la dhahaa biyaha maxaan macnaha dadweynaha aan ku qancin karnaa taas waxaa laga sugayaa shaqaalaha iyo inta macnaha hoos tagta shaqada waa la kala leeyahay dad way sareeyaan dadna way hooseeyaan waxaa laga rabaa qofkaas sareeya inuu ilaahay sareeya hoos joogo inuu gaarsiiyo cabashada laakiin dadkii hoos joogo haddii ay jiiftaan qofkaas ma ogaan kara waxaa laga rabaa marka shaqaalaha inay gaarsiiyaan hadda saddex qaybood hal qayb iyo bar biyaha xaafadaha koroo dhan ma joogaan waxaa maqlaysa xaafad lagu leeyahay 3 beri 4 beri biyo waxaan kasoo dhaansadaa meel kale kasoo dhaansadaa lagu leeyahay taasna waxaa keeni karta biyihii nimankii la rabay inay ka shaqeeyaan lama gaarsiinayo cabashada laakiin haddii cabashada la gaarsiiyo shaqada waa la weyneyn lahay ceelasha waxaa lagu sameyn lahaa dib habeen lagu sameyn lahay shaqaalihii waxay sameynayaan qaybtii oo ayaga le wal cagtii u dhowlay ka qaadanayaan warqadii waa la qoraa waxay sameynayaan dadkii oo biyaha u wada jiray biyaha wasaq tubadii waa la furaa waxay leeyihiin wasaqda hadin dhaafto wasaq oo dhowr kilomitir joogto ma dhaafi karto ciyow subaxii habeenkii la furaa leelkoosa la soo xamalaa in la xiro la isku dayaa biyo wax yar oo yar nadiif ah soo gaaray saacadii oo maqribka la furay ilaa habeenkii socotiyo biyihii wasaqda la dhaaminayay saacadaas way qori qofkiina ma haysto biyahaas ma cabin asaga laakiin saacadda way qori iyada isma dhahayaan macnaha saacadda way qoraysaa isma dhahayo haddana waxaan rabnaa koolkii aan sii gudagalna ayaan rabaa koolka hadduu alla idmo koolkaasna waa insoo gaarsiin doonaa hadduu ilaah yiraahdo insha allah koolkiyaan rabnaa inaan bilaawno wax yar barnaamijka koolashaan gali rabnaa barnaamijka qaybta kale waa kasoo gudooni qaybta koolashaan rabnaa inaan galno intaa koolasha sii gudagelin ayaga ayaa koolasha aan sugaynaa intay sii gudagelin waxaa la rabaa shaqaalaha waxaan uga baaqayaa in ay barnaamijkii ay macnaha sii saddex jibaaraan afar jibaaraan haddii ay xaafadaha kormeer ku sameyn waayaan waxay dhici karta xaafad walba oo la taga biyihii wasaqda iska miiraayeen ayaa waxaa lagu leeyahay biyihii saacadii waxay qortay 120 130 waxaa lagu leeyahay 150 qofkiina ma cabin laakiin wasaqdii uu iska dhaqay ayaa waxay qoraysaa biyihii saacadda iyadii biyahan socda leh wada qoraysaa waxaan rabaa barnaamijkii qaybiis kale inaan sii gudagalo qaybiis kale ayaan sii gudagalo qaybta dad wadaagiyaan rabaa inaan sii gudagalo salaamu calaykum alo walaal soo dhowow alo soo dhowow walaal soo dhawo kule barnaamijka waa la socotaa ay maasha allah sii gudagal maasha allah يا dadkii waxay u oranayaan webiga ilaahay adiga qof kasta oo hal kilomitir ama 3 kilomitir u jirto hadana aan siyaay biyo deeqayeen
ما شاء الله أول بيها معناها وحال لهاي وسق إيه هذا وحكوسو كرديال لهاي معناها دنان برنامج كاس مجرى دنان كل شيء أيه marka walaalo waalada la jeesto magaalada kambaniya ka jiro biyaha oo shaqeeyo ummadii haddii u dhimanayna ama ummadii soo qabanayna wixii looga iibsaday ama loo xilsaaray anaga haddaan nahay bulshada degmada waxaan codsanaynaa in loo keeno kambaniya kale oo biyo loo soo saaro biyo fiican oo macaan oo nadiif ah la siiyo ma garan waan gartay laakiin oo soo isma dhaysid shaqaalihii iyo dadkii madaxdii inay iska warqabin oo cabashadii la tobinin soo lagama yaabo taasna shaqaalaha qaladka ay leeyihiin wallahi niyo arrintaas waa macquul way dhici kartaa oo shaqaalihii iyo dadkii madaxda ahaa iskama warqabaan laakiin dad badan oo cabashada loo gudbiyey oo loo sheegay oo arrintaas ka warqab waa jiraan markaas oo shaqaalaha maa loo gudbiyey mise nimankii kambaniga lahay qoysas fara badan oo soo hadda bisha waa dhamaatay bisha hadda waxaa waaye waa gabagabo sida jaraamkii bisha dhamaato xaafado fara badan oo tageen waa jiraan oo dadkii ay cabasho u gudbeen oo dhan ilaan baa jirto maalmihii ugu dambeeyey inay waa laba oomeen cabashada waa soo gaarsiiyaan waa loo sheegaa nimanka shaqaalaha mana gaarsiiyaan magaala ayaga ka saraya ma garatay kuley markii macnaha ra'yi ahaan aan qiyaasay kuley shaqaalaha ayaa madaxda ka sarreysay aan gaarsiinin macnaha cabashada shicibka inta badan ma gaarsiiyaan laakiin hadda waxaan baan u diraynaa haddii aan odayaasha degmada loo maamulka degmada in arrintaas ka hadlaan oy ka dhiibtiyaan oo ummadda biyo fiican inaan ma garan maasha allah taas horta runtaada waaye anaga macnaha hadda qaar macnaha ra'yi ahaan waxaan dhihi lahay kow intaanan madaxda loo gudbin shaqaalaha waxaan dhihi lahay in oo madaxdooda ay si degdeg ku gaarsiiyaan si ay shicibkii baahida hayse ay u tiraan laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaa codsanayaa in biyaha dadka biyo la waraabiyo oo biyaha fiican waa in la siiyo si looga baxo dhibaato biyo la-aanta ee ka jirta degmada maadaama kambaniyadooda ay leeyihiin biyahaas ka shaqeeyo oo ku kala saaran waxaa codsanayaa marka in biyo nadiifa la siiyo hadda biyo nadiif haysa kuwa wasaqaasa waa laleeyahay wax la cabaa laleeyahay marka awal macnaha wasaqdii oo ka cararaysiin hadda waxay noqotay in wasaqdiiba la waaye wasaqdii aan laleeyahay wax la cabaa laleeyahay dadkii wagay wardaaniya oo dagaalisa oo in deeqa wasaqa oo hawsha hawlaha laga qaadi karo oo haddii ilaahay kuwan yahay jacaadkii jiro dadkii dhibaatooyin fara badan soo jeednay marka maasha allah horta waa mahadsan tahay maadaama aad ka tirsan tahay odayaashii degmada macnaha kuwii oo dhalinyarada adoo u hadlaaya dhalinyarada ilaa odayaasha inta udhexaysa adoo u hadlaaya maasha allah horta aadaan kaaga mahad celinaynaa maadaama aad barnaamijka nagala qayb qaadatay aadaan kaaga mahad celinaynaa aad baa umahadsan tahay hadii la kuwan yahay maqaaladaadana waan daawanaa adiga waxaan kaa codsanaynaa inaad arrintaas baahiso oo aad soo geliso baraha bulshada si dadka ay u arkaan loona helo biyo nafiiska dadkii maadaama arrintaas haddii laga hadlo la heli karo haddii arrintaas hadda ay facebook ugu arkaan baraha bulshada waxaan aaminsan in la heli karo biyo nadiif markiina biyo ka heli karaan ma garan maasha allah marka adigana aada umahadsan tahay aada umahadsan insha allah waana kaa mahad celinay sida qiimaha badan noola soo xiriirtay anigoo ku hadlaayo hoos odayaasha iyo dhalinyarada intaba maasha allah aada umahadsan tahay okay waayahay insha allah kuley aadan kaaga mahad celinaynaa maadaama aan barnaamijka nala qayb qaadatay soo dhawow aadna kuusoo dhaweynaynaa insha allah barnaamijkan qaybiisana aadaan uga qayb qaadan doonaa insha allah aada baa umahadsan insha allah waa ujeediin waa odayaashii degmada kolol fara badanaa soo dhacaya lama qaybsan karna dadweynaha haddana waxaan idin leenahay barnaamijkeena halkaas ayuu ku egyahay waa annagii iyo farsamayaqaanada idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu